الله ونحرسته مرحوم إبراهيم آذن محمود وكميدها قحوتيجي حرادة إفو أيال لواي كدي مركو حابا كريتا كودون تيسيد للشيغي وحونا مغنا مدوكا بدن سيديدي تبنبري شالي قلبا يا إساقو داوا عي نفح اللي كجير تلا صور ديغي دولاتك حرادة إفو وحونا حالي سيقدي دحي أغيريو دي جردل إيا داوا عيدي لقارسيي وفرح أباهي sidoo ka reetan noogu xamaalayo maxay ahaaday noogu shaqeynay annaga toddobacan sagaal ruux sidoo noogu shaqeynay sidoo xaaban noogu doonay meydkiisa aan noola keenay waxaan muujinayaa niyo xumo saaki iyo niyo jab waxaan saaka ku jirmaaday xaafadda N31 ee xerada Ifo halkaas oo ku geeriyooday xalay naxdin iyo murugo badan ayaana xilligaas goobta ka jirtay wuxuu ahaa 40 jir aabba gaari dameer ku koriyay 9 caruur oo hooyadood iyo walaashii waxayna hadda ku jiraan xaalad murugo iyo tacsiye ah ani ciyaalkayga inaan meel haqdar ku suganahay aabba naga meydkiisa noola keenay naqtin xoog leh ay nahay نعتن حق لينا يا عيسى ساكن معايا هذا نفرح الدراء اللي جوغي اللي يحوما اللهم هدلي كرم آمين دوبو فارح وحاسكو مرحومكو كدنتي باهين مركو جوغي حرقان كو نولين حوغيسو نوغو حمالاي maxay ahaaday soo wax noogu keenaba asaga wax noo keeni jiray kareetaas noogu xaabeen jiray farxadaan lahayn nololaan lahayn laakiin hadda nolol xumo iyo jirdil islaana kulunay wax niyo hansaakis waxa saakeen la joogna ma jiraan khayra aadan maxamuud ay walaalo ahaayeen ibraahim ayaa sidoo kale dareenkooda u muujisay dameero qoryan xaawan noogu doonay dameerka ka dhumay walaalay dameerka waa maqan waana raadin laay dameerka markii warkiis ugu dambeysay wuxuu yiri dameerka waan soo helay waan soo wadaa ogaanteeda lahaw wax yar kadib la joogo lambarkiisa in la iga soo wacay yaray ma garanay lambarkan waa garanaa yaa iska leh walaalkay wuxuu ka shaqeeyaa walaalkay wuxuu ka shaqeeyaa xaawus noo doonay dameer inaas dayayn waa ugu dambeysay waxay ahayd walaalow aday lambarkan xageed ka aragtay caruurta sida ugu tiirsadeen asaga lay ku nooleen ilaahay ka sako asaga lay ku nooleen wax meel laga soo galay male wax meel laga soo saaciideynay male waxa tiya adduunyo hal mar Allah ka dhig noola soo gaday male gacantiis lay ku nooleen asaga lay fiirinayni hadaas jiifsana waa jiifanayni hadaas socdana waan soconayni laakiin markuu asaga noo xabeynay asaga noo socdi waan nooleeni falkan ayaa waxaa si kulul u cambaariyay shacabka qaxootiga oo naxdin iyo saska qaaday dhibaatadan aadan maxamuud ninka 20 bari baan goobaynay meel walba waa marnay intaas adduunka oo dhan inta soo jeeda hay'ad walba waa tagnay sida anagu u goobaynay waxaanu aragnay shalay meel cilaa isagoo yaala abaqbaaba stationkiisa meel ka shaqeysa oo u dhow isagoo yaala waxaan cambaaraynaa dadkii ninka dilay ninka miskiinka oo qoryaha guranayay oo ilmihiisa ku qoriyaysanayay wax kale oo camalana aan ahayn wax uu dhibaho u geystana la arag dadka dilay ninkaas waa cambaaraynayna waxaan ku cambaaraynayna adduunka oo dhan baan ku cambaaraynayna waxa uu ka tagay ninkaasi dad 12 qof ah oo caruur ah gaarigu ugu xamaali jiray oo qaxootiya naf waxa uu ahaa gaarigaas gareetada waa nin qaxooti oo qoryo gurata ah oo imlo xamaalanayay ayaa duurka lagu qabsaday wax ku qabsadayna lama garanayo asagoo uray oo dixiri gal oo googay oo meel u noolaan lahayn baa la soo dhigay waxa la soo dhigay qaxootiga korkiisa inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waa arin aad u dhib badan oo qiiro leh gubay oo googay oo dixiri ku jira shalay la soo dhigay alxamdulillah xalay markii 6 saac meelahaas ay ahaydna naftu way ka baxday marka muslimka waxaan ka codsanaynaa dadkan caruurta masaakiinta uu u shaqeyn jiray 9 ruux ilmood iyo hooyadood buu ka tagay iyo gabar walaashiisa oo meesha degan hadee dadkii islaam oo dadkaas arka waxaan ka codsanaynaa dadkan waxay u qaban karaan inay u qabtaan lama oga cid disha iyo sababta midna balse waxaa jira tuhumo aan la hubinay qabaan bulshada meesha asaga hadalihii ugu dambeeyeen ka qornay afkiisa uu ka qirtayna waxay ahaayeen askar baa meeshan isoo dhigtay oo igaga tagtay oo idishay dil iyo jirdil iyo saxariir iyo silac meel u loolna ma jirin ninka korkiis lafiisa oo banaanka yaalaan oo hadda tab loo dhaqaaleeyahay jirka marxuum Ibraahim ayaa waxaa ka muuqday jirdil nabaro halisa
gubniin fara badan iyo xubnihiisa qaarkood oo jabnaa waxayna ahayd dhacdo argagax gelisay shacabka qaxootiga iyo ehelka marxuumka la dilay. laamaha ammaanka deegaanka Dadaab wax ku weydiinay dhacdadan xanuunka badan ayaa ka gaabsaday ilaa iyo haddana lama ogo ciddii ka dambeysay falkan foosha xun ee lagu dhibaateeyay shakhsiga aan waxba geysan sida la sheegay. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.